xiisada ayaa cirka isku shareertay magaalada caasimadda u ah wadanka Koonfur Afrika ee Pretoria kadib markii rabshado ku dhisan sirnacayb ay ka dhaceen wadankaasi iyadoo la boobay goobo ganacsi oo ay leeyihiin Soomaalida iyo dadka u dhashay wadanka Pakistan waxaana dawladdu ay ciidamo bilaysa u dirtay dhanka bari ee magaalada si ay u badbaadiyaan goobaha ganacsiga ay leeyihiin dadka shisheeye sida wararku ay sheegayaan rabshadahani ayaa ka dhashay kadib markii habeenkii Khamiistii nin Soomaali uu toogasho ku diray gabadh yar oo 10 jir ah oo u dhalatay wadanka Koonfur Afrika oo lagu eedeeyay inay xaday baaka nacnaca ciidamada bilayskuna waxay sheegayaan in hadda gacanta ay ku dhigeen xaaladda ammaanka ee dhanka bari ee magaalada kadib markii rabshadahaasi kor ay u kaceen habeenkii Khamiistii hase ahaatee ilaa xalay waxa meelaha qaar ka dhacay weeraro lagu qaadayo goobaha ganacsiga ay leeyihiin Soomaalida iyo Pakistaaniyiintu wargeyska Nigerian Bulletin oo xiganaya saraakiisha ammaanka ee wadanka Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay in rabshadahani ay yihiin kuwii ugu xumaa ee waqtiyadani dambe ka dhaca wadanka Koonfur Afrika ee lagaga soo horjeedo dadka shisheeye ah hase ahaatee aanay ka dhalan wax dhimasho ah oo loo geystay dadkaan u dhalan wadankaasi inta badan weeraro ayaa lagu qaadaa goobaha ganacsiga ay leeyihiin Soomaalida iyo dadka shisheeyaha ee ka ganacsada wadanka Koonfur Afrika waxaana rabshadahaasi kuwii ugu xumaa ay dhaceen sanadkii 2008 oo la khaarajiyay 760 shisheeye oo ganacsata waxaana inta badan dadka weerarada loo geystay ay u kala dhasheen dalalka Mozambique, Malawi iyo Zimbabwe